waxaan wanaagsan ku soo dhawaada qaybta afraad sheekada xiisaha badan dhimashan ka xiga ah inaan dib kuu soo jeclaado. sheekadan waxaa qoray daalac daarashood waxaa idinla socodsiin doonaa anigoo gacal eyman. sheekadan maalin walbo jimcaha waxaad kala socon kartaan janalka youtube-ka ee gacal eyman. noqo qofku ugu horeeya sheekadan hela, sidoo kale la wadaaga asxaabtaada. qaybta afraad ee sheekada ayaana ku bilaabanaysa sida tan. anisaabed wuxuu ogaaday in gabadhiisa iyo ninka ay la baxsatay ay ku nool yihiin magaalada boosaaso ee gobolka bari. wuxuuna durbo bilaabay inuu iskaashi la sameeyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland ee ka aramiya magaalada boosaaso. waxaana mas-uuliyiintaasi durbo u xil saareen kiiskaasi ciidamada booliiska iyo sidoo kale sirdoonka magaalada jooga. sirdoonka ayaa bilaabay inuu dhex galo dadka kana war doono xaaladda nolosha ay ku nool yihiin, iyagoo iska dhigaya hay-ado samafal iyo wadaado. anise waa gabar iska daacada, waa gabar aan ku soo barbaarin been, waa mid mar kasta dadku u sheegta silac iyo sababaha halkaasi u joogto. waxaana u suurto galay in la ogaado halka ay anise joogto qofka ay tahay. kadib sirdoonka wuxuu wargeliyey booliiska magaalada si loo qabto anise. xilli subax oo waagu baryin ayay booliisku gacanta ku soo dhigeen. xilliga anise la qabanayay way xanuunsaneed, waxaana hayay cudurro fara badan sida malaariya, tiifo iyo nafaqa darro. waalidka anise waa lagu wargeliyay in gabadhooda gacanta lagu dhigo. aad bay ugu farxeen in gabadhooda la hayo. reerka anise waxay codsadeen in diyaarad u soo jeeda magaalada muqdisho loo soo saaro. dhanka kale ridwaan isagana waxaa la soo darsay cabsi iyo walwal. wuxuu joojiyey shaqadii uu ka waday dekedda magaalada boosaaso. ridwaan markii uu arkay in gacalisiis gacanta lagu dhigay wuxuu tiri geeraar murugo badan, wuxuuna yidhi xaasid baa xigtadeedii gacanta ku dhigay. xabsi aan la garin hadafkiisa u kaxeeyey. xorriyaddii bay ka qaadeen, maxbuus bay ka dhigeen. xamar baa loola cararay, anigana kama haro. xaq maaha in labays jecel la kala geeyo. xaqdiga daayo, ha u horseedin hoog iyo shido. xeelad kastoo aad inoo dhigtaan ku waari mayno. yaa xayaati qalbi, aad baad beerka iiga taal. xamar haddii aad tagtana waan ku soo dabahayaa macaanto, ayuu yidhi. ridwaan markaan wuxuu bilaabay inuu noqdo nin tuugsada ama dawarsada xaafadaha magaalada boosaaso, maadaama uu aada uga niijabay xarigga gacalisidiisa. wuxuu iska bedelay magacii lagu yiqiinay, mana booqan meesha lagu hayo anise. wuxuu ka baqay in isagana la qabto. xaalka ayaa ku adag, labadooda walay u badan tahay ridwaan haddii la qabto in la qaarijin doono. anise waxaa la soo saaray diyaarad, waxaa loo soo wadaa magaalada muqdisho. iyadoo uma aragto farxad ku laabashada magaalada muqdisho. waxay u aragtaa inay nolosheeda sii gelayso cadaab hor leh iyo arxandarotii ugu xumeed. waxaa laga soo riday magaalada muqdisho. muuqaal ahaan way liidataa, caafimaad ahaan way jiran tahay. waalidkeed ciil ayuu u qabaa iyada maadaama nin ay ka raacday. anise markii la keenay guriga, gacmaha waxaa looga xirxiray silsilad si aysan u baxsan mar kale. waxaa loo qabtay dhakhtar ku daaweeya isla gurigooda. anise wax kasta waa ay diiday inuu cunto, xitaa haddii lagu qasbo. waxay tidhaahdaa anigoonan arka ridwaan wax cuntaa ma cunayo. habeenkii qarow iyo calwasaad ayay ku jirtaa. anise maalinkii afkeeda kama baxo ridwaan. salaadaha markay dukato ilaahay ayay ka baridaa inuu nabad yeelo, dibna ugu soo celiyo jaceylkeeda. jaceylka anise u qabta ridwaan xilligan wuxuu marayaa waali xaddaaf ayayna u jeclaatay. mala gambato dareenkeeda ay u qabto ridwaan. xilli kasta way u ilmaysaa ridwaan. indhaha ayaa caddaaday sidii ridwaan ugu ilmaynaysay. waalidkeedna kama daayo cadaadiskii silac ay ku hayaan si ay ninkaas u hilmaamsiiyaan. aabbaha anise wuxuu go'aansaday in gabadhiisa cirbad lagu dhufto muddo 3 bilooda ay noqoto gabar miir doosan. cirbadda lagu dhufan doono anise waa mid sidoo kale xasuusta wax gaarsiisa. anisaabed wuxuu sidaan u sameynayaa mar un inay gabadhiisa ilowdo ridwaan, laakiin aragtidaasi uu wato aabbaha waxaa ka soo horjeeda anise hooyadeed. labada waalid waxaa soo kala dhex galay khilaaf. anisaabed wuxuu ku adkaystay in gabadha cirbad lagu dhufto, waxaana la balamiyey dhakhtarkii. talow ma la duri doonaa? haddiise la duro ma noqon doona xaalkeeda mid ridwaan ku ilowdo? anise intaan lagu dhufin cirbadda dhakhtarkana la sugayay maalinta britoole, anise hooyadeed waxay go'aansatay in gabadheeda ay ka sii dayso xabsiga xilli habeena uu aabbaha u dayo. anise hooyadeed waxay u aragtaa meel ka dhac in gabadheeda la duro, weliba daawo xasuusta baabi'inaysa lagu duro. hooyada dhaqanka aabbaha ayaa u cuntami waay. waxay door biday in gabadheeda ay sii dayso iyadoo bad qabta. anise waa la sii daayay xilli habeena. waxaa dhex maray dardaaran iyadii hooyadeed. anise hooyadeed markaan waxay ku qanacsan tahay in gabadheeda xiriir la samayso qof alaale qofkii ay u aragto inuu nolosheeda farxad gelin karo, xitaa ha ahaado ridwaan.
anise waxaa la siiyey lacag ay ku sii socdaasho kuna filnaan kartaa ilaa muddo bila haddii si nidaamsan u isticmaasho lacagahaasi. anise way og tahay in weli gacalyaheeda uu ku sugan yahay magaalada boosaaso, laakiin kama warhayso inuu magac iska bedelay. anise waxay doonaysaa mar kale inay ku laabato magaalada boosaaso. markaan xamar way ka hortimid, waxay u xiisay jacaylkeeda Ridwaan, laakiin su-aasha meesha taal waxay tahay sidii ku gaaraysa halkaasi. anise waxay ku faraxday inay ka baxsato qorshaha cadownimo uu watay aabeed, iyadoo faraxsan ayayna geeraar ku tilmaamtay guusha farxadeeda. guul baan ka gaaray gardaradii aabbahay, god buu ii qoday balse kumaan dhicin. garasho aabbaan lahayn baa dhalaankiisa noqday. gaf wax ku sax intuu is leeyahay adduunyadu ku hallawdaye, gar baan u leeyahay inaan wax gacloodo kantaalaha xamar yaallo. haddii aad la timaado aabbow qalbigii kama jeri kartay Ridwaan ayay tiri. waaga markii baryay iftiinka soo baxay waxaa yimid gurigi dhakhtarkii la sugayay ee la balamiyey. dhakhtarku wuxuu codsaday in gabadha bannaanka loo soo saaro, hase aatee aabbaha markii uu maagay inuu anise qolka ka soo bixiyo waa uu u tegey qol cidlaa oo haawanaya. aabba wuu naxay markii uu waayey, shaki ayaana ku dhashay aabbaha, waayo guriga meelna kama jabna. waxaa u sii dheer in silsiladda anise ku xirneed aysan jabnayn, qufulka sidoo kale uusan jabnayn. wuxuu canaan ku bilaabo hooyada, laakiin hooyada waxay tiri iyadoo aad u caraysan, haddii uu maankaaga soo yaraaday da-diina kaa daba timid, dhallaan aad dhashay umaad quurteen inaad xasuusta tirto, uma weecateen dhakhaatiir. anigana sidaa iguma sii qabaysid. anise aabeed waa nin isfiilitaday ku badan tahay, isla weynina usii dheer tahay, hantidunu ka badatay. wuxuu ugu jawaabay xaaskiisa, maadigii shalay cidda faqriga ahayd kaa soo waday oo aan ku haraa tiray, daabiyaa adduunyana dusha kugu raray, miyaa maanta eryadaasii leh? adigay gabadhaada sheekada waad isla ogtihiin, ee iga guddoon 3 dalaaqo, gurigana iga bax, shalay adigoo ceera waxbaysan baan ku keenay. markii intaasi dhacday uu reerku burburay, anise hooyadeed waxay warqad u dirtay gabadheeda, waxaana fariin ahaan ugu dirtay wixii dhacay. iyadoo garaaraysa ayayna tiri, waa garaangar dunidu kolba way isgedisaa, harka labada gediniyo waa galab iyo subax. ruuxay gaajo haysiyo haddii uu gamuun rido, falaarahu ma gaaraan goobta loogu talagalay. waxaan uga galan leeyahay garaadlaawo waa ruuxii hadduu goolka hadalkiioo garanayn ujeedka. laba ruux gayaan oo isgeeyo isgarabsaday, gundhigooduu yahay kalgacayl mid aan gurin, guur iyo hanaan wacan ku galaday ilaahay. wuxuu u kala guro kala geynta gacallada, godka ugu ridayo maan garan ganuunaca. haddii geesi aabba yahay guusha ruuxu jecel kumay geelameen talo. gocashada xanuunka iyo wixii adiga ku gaaraan anna way i gubayaan. haddii godob lagaa galay xaajada guracan tahay, halkay doontaa gaartay leegama garan noqo. yidhi waa gam sheekadu, gorgorta male gafkii dhacay, garabkiisa ninkii jaro waa geedi aan furan. caraguluf gun iyo baar aabbaha u gaartahay, hadduu gooni socod noqday xoog reer ku dhaqi rabo. xiriirkeennu wuu gaay, geeskan ka eegaba go'aan baan ka qaato, guugal ma wadaagno. 3dii geesana ii saaray guudku, gacmahan ku haystaa markaad gobollada gashay. waan kala gadoodno anigii aabbaha, gurigiina waan ka soo tegey, ayay fariin ahaan ku tiri anise hooyadeed. sheekada markaan meel xasaasi ayay maraysaa. anise waxay ku sii jidaa boosaaso.